Facebook waxay ku sii dhawaanaysaa 1 bilyan oo isticmaale hadda 901 milyan ayaa bil walba adeegsada Facebook nus bilyan dadkaas ka mid ah waxay ku adeegsadaan mobilkooda ama qalab kale oo gacanta lagu qaato waxa kale oo soo baxday in bartan bulshadu ay kharash garaysay 300 milyan oo dollar oo qaarna cadaan yahay qaarna saamiyo markii ay gadatay application-ka sawirada lagu wadaago ee Instagram waxay ku gadatay lacag lagu qiyaasay 1 bilyan oo dollar dah ayaa dhaama in aan marnaba la gaarin Google waxay diyaarisay kayd daruuraha ku yaal oo dadka siinaya kayd mugiisu yahay 16 terabytes adeegan waxa qaar badan u arkaan inuu culays ku yahay adeegyadii hore loo bartay sida Dropbox Box iyo SkyDrive-ka Microsoft Google Drive ayaa hadda loo bixiyay waxay isticmaalayaasha u ogolaanaysaa in ay ku shubaan video sawirro document PDF iyo qoraallo kale waxay siinaysaa ilaa 5 gigabyte oo lacag la'aan ah haddaad u baahan tahay kayd intaas ka qaad weyn waa inaad lacag la baxdaa Despite all the tanks madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu amar ku bixiyay in wax laga qabto qof kasta ama shirkad kasta oo dawladaha Iran iyo Syria gacan ku siisa isticmaalka technology-ga loo adeegsanayo in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha amarkani wuxuu cunaqabateyn ku soo rogayaa dawladaha iyo qof kasta oo gacan ku siiya dawlado in ay adeegsadaan technology si ay uga warhayaan u bartilmaameedsadaan ama u dabagalaan muwaadiniinta iyada oo ujeedadu tahay in wax loo dhimo naftooda cunaqabateyntan cusub oo loo bixiyay qoryo digital ah oo kira ah Obama wuxuu uga dhawaaqay khudbad uu ka jeediyay madxafka Holocaust ee Mareykanka sharikadda ammaanka kombiyuutarka ee Intego ayaa sheegtay in ay daahfurtay nooc cusub oo ah flashback malware oo la yiraahdo flashback.s oo ku shaqeeya Java bishan horaanteedii Dr. Webb oo ah sharikad Ruush ah oo la dagaasho viruska ayaa sheegtay in ka badan 1 milyan kombiyuutarka Apple-ka ah uu galay viruska flashback trojan Intego waxay sheegtay in aan wax password ah loo baahnayn marka la soo degayo variant-gan cusub